بني آدم كهدانا يسكرنا أيجو يسقيمينا horta cid kale intay samada uga timaad qiimeyn mayso ninka marka aan hawsha waxba ka garin horta waxaan khubraa loo yeedho xildhibaanadu iyagoon akhriin bay horta hadlayaan iyagoon qodobada u fiirsan bay hadlayaan iyagoo hadalkoodu kala kaful yahay bay hadlayaan iyagoon buug akhriin iyagoon sharciga akhriin waa 17 qodob ninka investorka ee dabadda inooga yimid lacagta dalka dabadda uga saaraya boqolkiiba 20 lacagta dabadda u saaraya inuu ku maalgashado mashaariic dalkani leeyahay horta bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad wada mahadsantiin waa run oo in buuqaasi ka dhacay deewa maragba ka ahideen oo saxaafadana way ka muuqataa kulli waxaan isleeyahay golahana kuma cusbay awal bad buuqiye saasi way iska dhici jireen dadka qaar sanqar baa u baxda waxba badan bay noognaayoo mucaarad iyo maxaafid baa la kala ahaan jiray way isbedesho xagga kale isrog inkastoo ragga qaar badan ani weli la qabsan boo malaha xagga arrinta isbedelkeeda iyo dee roobka iyo abaara gorogoradii baa lagu jiraa gorogoro kasta markaa lagu jiray horta waa run xeerkuni waa xeer dee u dana dalka waa xeer soo shaqeeyey wasaaradda ka soo shaqeysay xukuumadda ka soo shaqeysay guddigii naga horreeyay gudoomiye xirsi guddigii hore hawlaha gudba aad uga soo shaqeeyey weliba aad u akhriyey annaga lafdigeenu markii guddigaanu nimi xildhibaan ahaan waanu ka fadhiisanay waanu akhrinay waanu islaagnay rag weliba khubraana waanu u yeelay soo kordhinay markaa miiskii guddidaanu ku faaqinay waqti kale guur baa laakiin ku soo beegmay golaha fasaxyaa soo beegmay markaa dib buu u sii dhacay xeerku inaynu golaha inaynu hor keenno arrinta u yeedhidda wasiirkana goloweynahan horta ugu yeedhnay wasiirka hore waanu ula kulannay oo proseskiisa xeerku inta badan wuu soo wada maray stakeholderska waa loo yeedhay wasaaraddaa u yeedhay waa laga wada hadlay meelo waa loo yeedhay wasaaradaha kale oo badan oo weliba in arrintooda la tixgeliyo loo yeedha ay tahayna weli way jiraan planninka waa dabcan way khusaysaa laakiin waa laba xeer faaqan maanta ka amniga ayuuna soo qaadanay amniga dambiyada technology casriga ka dhaca weeyaan kan maanta ka jeedinay laakiin data protection kiiba isaguna cyber security baa kanay ka kalena waa data protection ka ahaa baa weli inaga ayaa isaga lafdiisu inaga maqan oo waqtiga labaad ku soo jira marka xeerarku waa adag yihiin dadka way ku cusub yihiin golaha way ku cusub yihiin koluu ta injineer IT buu leeyahay injineer hydrologics buu leeyahay injineer civil buu leeyahay military engineers baa ku jira bani aadamku haddaana iskaranoon ayagu isqiimayna horta cid kale intay samada uga timaad qiimeyn mayso ninka marka aan hawsha waxba ka garin horta waxaan khubraa loo yeedho ama wuxuu odhanayaa isagoo kiisa xaqiraya ama wuxuu odhanayaa isagoo kiisa aan u jeedin ama wuxuu odhanayaa isagoo ujeedda kale leh ama wuxuu odhanayaa isagoo cid kale u jeeda laakiin arrintan waa arrin laga soo shaqeeyey khubradii dalku eegtay heshay ka baaraan degtay waanad maqlayseen hadalkii xirsana gudoomiye xirsi oo hawlaha guud ahaan rifargareeya xeer faa'iido leh ummadda dalka iyo duunyadeenna intaba waanad mahadsantay xeerkan shalay waynu arkayno su'aalo badan bay xildhibaanadu markii hore ka keeneen oo hadday tahay xogaha telefoonada dadka ku jira qaabka in dadka baariga loo dirayo war haddaad sharaxaad bixiso imanka tusaale ahaan qof baa dembi galayba dadka baariga xeerku qeexaya waa dad nooceeya dadka baariga horta waxa la baarayaa waa daatada waanad la wada socotaano imanka haddaad war gudbiso oo warkaa cidi wax ka tabato wariyihii qaaday baa la helayaa marka la baarayo tvgii sii daayey baa la helayaa xitaa tafatirihii baa la helayaa dee rikoodhkaa ay mareen baa horta laga helayaa haddii qofku halkaa awoodaan ka baaraya idhaan weligii heli maayo laakiin hadduu broseskii maro wuu soo wada helayaa hataa waxaa la helayaa qofkii markaa warkaa ama wax ku daray ama wax ka jaray ama wax ka dhimay ayaa la helayaa laakiin waa in broseskii la maro xildhibaanadu iyagoon akhriin bay horta hadlayaan iyagoon qodobada u fiirsan bay hadlayeen iyagoo hadalkoodu kala kaful yahay bay hadlayaan iyagoon buugga akhriin iyagoon sharciga akhriin waa 17 qodob 17 qofku markuu akhriyo ayay tahay inuu qodob number 3 number 8 number 6 uu qodobka horta soo qaato oo qodobka wax ka yidhaa 67 imka guuleedoo kala shalay uu ka hadlay wasiirka uu la hadlay qodobka 67 buu ka hadlay in fact sidoo uga hadlay ayuu kan soo jeedinayay guddidu u xalilay ee arrinta uu doonayo waa ku kala duwan golaha iyo wasaaraddu dabcan waana runtii golaha wax loogu keenay golo mas'uuliyadii uu leeyahay matalaadda shacabka marka guuleedoo kale sidoo shalay uga hadlay xildhibaan guuleed ama mudanuhu ayaa in fact guddi ahaan guddigii naga horreeyay u dhigay annana guddi ahaan markaan akhrinaan ku waafaqan oo correct oo sax marka haddii arrinta laga hadlayaa ay si kala fuulo uu qofku u hadlo si guud buu hadlay si guud buu hadlay sida guudna run iyo runna raad kuma leh
beenna maaha faa'iido maxay bulshada u leedahay runna raadkuma leh beenna maaha xeerku muxuu faa'iido bulshada u leedahay bulshada wuxuu leeyahay horta waa hawl cusub dunida casrigaana dee GSM-kaaba 10 jira maanta waxaan kuu sheegayaa muwaadinkeena investorka ee dalka maalgashada iyo ninka shisheeye ee maalgashada lacagta dibadda kaaga saaraya wax difference male xeerku wuxuu sheegayaa ninka investorka ee dabadda inooga yimi lacagta dalka dabadda uga saaraya 20% lacagta dabadda u saaraya inuu ku maalgashado mashaariic dalkani leeyahay oo shaqo abuur leh oo ummadda shaqo abuur leh oo dhalinyarada shaqo abuur leh oo bile iyo korodh ummadeed iyo daleed iyo diineed iyo dunyeedba u leh halka ninka muwaadinka aynu ognahay in kullaba goor walba lacagtiisu ay dalkan galayso dunidoo dhanna way ka jirtaa wax dunidoo dhan ka jira inuu dalku dantiisa iyo duunyadiisa iyo bulshadiisa iyo dhalintiisa ilaaliyo oo shaqo abuur u sameeya xalima su'aalaha kale la soo yaa awood u leeyahay baaraan ay soo xaliyeen wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda mas'uuliyadda wasaaradda boosa iyo isgaarsiinta mas'uuliyadda koowaad haddii aad wax ka bato wasaaraddana garsoorkii baa kuu taagan every penny single penny minute walba iyo wixii laga khaldaba aad uga dacwoonaysa xaqna waad u leedahay waana lagu qabanaya weliba haddii cidi ku dhibaatayso maya qofku haddii dembi lagu hayaysa xukunka lagu ridaya ee xeerkiina qeexaya oo leeyahay intaasoo sano xukun abaa ku dhacaya muxuu yahay qaar badani waa sanad say dariibtu kala yaryihiin qodobada 7 waad heli doontaan ilaa iyo 58 ayaa waxay qeexayaan sidaan horeba golaha uga akhriyay waxay qeexayaan dunuubta iyo qadarada lacageed qiyaastu tahay wax maxkamadaha iyo garsoorku iyagoo taa translate gareynaya ay hadhow ama turjumaya oo turjumada waafajinaya xeerarkeennii iyo shuruucdeenii iyo garsoorkeennii ay ku qaadaan bay noqonaysaa laakiin waa inta u dhaxaysa 20 milyan ilaa 60 milyan qofka garsoor waana 7 ilaa 8 amniga teknolojiyada marka laga hadlayo dambiyada ka dhacay amniga maxaa laga bilaabaya la oran karaa waxaas dambiya waxa dambiya simbali inaad hadal intaad iga duubto aad adigu bedelatood kelmad kale waxay ku darto waa dambi seedii dambootay waxa dambiya inaad intaad sawiran lahayd soo qaado mid kale oo falxun qaab taranaad meeshii geliso waa ka ugu dambiyada ugu yar wey waa kuwa ugu yar kuwa ugu waaweyn waxa wey inaad warbixin jeediso dalka iyo bulshada isku horkeenayso oo iyada dambi kala maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121